okay waa ogahay muuqaalkan dad badan wuu ka xanaajin doonaa laakiin runta in laga hadlo waa qasab weligaa ma isweydiisay sababta keento ku dhawaad 70% dumarka Soomaaliyeed inay cayilan yihiin haddaan ku dhaha ka waran dumarka Soomaaliyeed ku dhawaad 70% way cayilan yihiin 70% kaasna ku dhawaad 50 ka mid ahna waxay soo galayaan kategoriga obese-ka obese iyo cayil waa laba wax oo kala duwan obese waa cayilkii oo isku bedelay jiro ama mar dhow isku bedeli rabo jiro bal adiga fiidug aan fiirsanayo maxay kula tahay sababta keentay in ku dhawaad 70% dumarka Soomaaliyeed ay cayilan yihiin waxa laga yaabaa qaar badan oo muuqaalkan fiirsanayo inay aaminsan yihiin sababta keentay dumarka Soomaaliyeed qayb badan oo kamid ah inay cayilan yihiin inay tahay caajis dartiis waxa kale oo laga yaabaa qayb kale oo idin kamid ah oo muuqaalkan fiirsanayo inaad aaminsan tihiin sababta dumarka Soomaaliyeed ay u cayilan yihiin inay tahay faarax oo quruxda u yaqaano cayil haddaba hadaa idin dhaha ka waran saa wax u maleynaysaan ma ahan muuqaalkan waxa si fiican kugu sharaxa sababta keentay dumarka Soomaaliyeed ku dhawaad 70% inay cayilan yihiin 70% kaasna qayb badan oo kamid ahna inay soo galayaan kategoriga obesity-ga marka muuqaalkan si fiican u fiirso fadlan marka muuqaalkan fiirsanaysid si fiican ii dhageyso isku dayna inaad ifahantid adoo ifahmin fadlan xamaasad iyo ku qaadin waa ogahay markaan dhaho ku dhawaad 70% dumarka Soomaaliyeed way cayilan yihiin 70% kana ku dhawaad 50 ka mid ahna waxay soo galayaan kategoriga obesity-ga hadalkaas oo kale markaan ku hadlo waxa liiga baahan yahay cadeyn firi waxa jirto cilmi baaris lagu suubiyay wadanka Norway cilmi baaristan waxa ka qayb galay 147 qofood oo dumar Soomaaliyeed ah dumarkii ka qayb galay waxa loo kala qaybiyay laba group waxa loo suubiyay barnaamij raashin diet la galiyay barnaamij jimicsina waa loo suubiyay groupka kale tana free ay ahaayeen waxay rabaan inay cunayeen jimicsina ma aysan suubinaynin cilmi baaristan waxay socotay 12 bilood markay dhamaatay bal adiga fiidowga fiirsanayo sidee kula tahay groupkee ayuu miisaan badan ka dhacay haddaba hadaan ku dhaha ka waran labada group isku mid ayay noqdeen labada group waxba kama dhicin sababtana wax kala ma ahan gabdhihii loo suubiyay barnaamijka raashinka barnaamijka jimicsigana loo suubiyay hooshii loo diray way ka soo bixi waayeen caajis darteed taas waxay keentay 12 bilood inuusan ka dhicin wax miisaan ah marka gabdhihii cilmi baaristan ka qayb galay cabiradii laga qaaday waxa lagu ogaaday ku dhawaad 70% inay ahaayeen gabdho cayilan ama obese ah waxa kaloo jirto cilmi baaris kale oo lagu suubiyay Somaliland cilmi baaristan waxa ka qayb galay 726 qofood oo dumar Soomaaliyeed ah dumarkii ka qayb galay cabiradii laga qaaday waxa lagu ogaaday 31% kamid ah inay ahaayeen obese firi obese-ka iyo cayilka farqi weyn ayaa u dhaxeeyo obese-ka waa markuu BMI-ga ka badan yahay 30 cayilkana waa markuu BMI-ga u dhaxeeyo 25 ilaa 29 marka obesity marka af Soomaali si fiican loogu macneeyo waxay tahay cayilkii oo isku bedelay jiro ama mar dhow isku bedeli rabo jiro marka shaki kuma jiro dumarka Soomaaliyeed qayb badan oo kamid ah inay cayilan yihiin ama obese yihiin laakiin hadda su'aasha isweydiiska mudan ayaa waxay tahay maxaa keeno qayb badan oo kamid ah dumarka Soomaaliyeed inay cayilan yihiin ama obese yihiin ta koobaad waxay tahay raashin Soomaaliga mar walba waan ka hadlaa raashin Soomaaliga oo waxaan dhahaa dhaqanka raashin Soomaaliga wuxuu ku saleysan yahay dhadhan nafaqo ma ku saleysna raashinka markaan cunayno ma ka fikirno nafaqada aan ka helayno waxaan ka fikirnaa dhadhankiisa raashinkan cunno wuxuu u badan yahay simple carbohydrate oo saliid badan lagu suubiyay raashinkan cunno waxaan ku suubinaa saliid badan qarday arkin saliid ma ku dhahayo waa wax xun laakiin xadkii loogu talagalay markay dhaafto dhibaato ayay keenaysaa xataa bariiska markaan suubinayno saliid ayaan ku dalacnaa guud ahaan raashin Soomaaliga waa raashin kilocalories ku jiro uu badan yahay qof aan dhaqdhaqaaq badan suubinaynina maalin walba markuu cuno ugu dambeyntii wuu ku cayilaa tusaalan ku siinaa waxa tahay hooyo guriga joogto dhaqdhaqaaq ma suubisid jimicsi ma suubisid maalintii waxaad cabtaa 7 koob 6 koob 5 koob oo shaah sokor badanna ay ka buuxdo bal sokorta shaaha ku jirto kilocalories aad ka helaysid maalin walba markaad cabtid
sanadkii meeqa kiilo ayaa kugu darsamayso wax badan kugu darsamayo marka waxa gabdhaha Soomaaliyeed cayilinayo waxa uu yahay raashin Soomaaliga iyagoo dhaqdhaqaaq badan aan suubin ayay waxay cunaan raashin Soomaali badan raashin Soomaaligana kila calories badan ayaa ku jirto talabaad waxay tahay gabdhaha Soomaaliyeed jimicsi ma suubiyaan haday suubiyaanna wax macno leh ma suubiyaan dhaqanka Soomaaliga jimicsiga waa wax loo suubiyo faakiheysi dhaqanka Soomaaliga gabar jimicsi suubinayso waa wax ku cusub sanado ka hor wadankeena ma lahayn meel gabdhaha ay jimicsi ku suubin karaan laakiin hadda waxba isbedelay oo dadka way fahmayaan muhiimadda jimicsiga uu leeyahay waxaan xasuustaa waagii aan yaraa oo aan Soomaaliya joogay marka la arko gabar ordayso wax la yaabo ayay ahayd midada kale gabdhaha waxay ku daysadaan hooyooyinkood gabadhan waxay arki jirtay hooyadeed oo cayilan ama obese ah waxay arki jirtay hooyadeed oo waxay rabto iska cunto marka gabadha markay iskugu darsamaan dhaqankii gurigii lagu soo koriyay iyo dhaqanka bulshada way ku adkaanaysaa inay caafimaadkeeda ka fikirto sababtoo wax kala ma taqaano waxay taqaanaa waxay dhaqankeeda ka baratay iyo waxay ka soo baratay dhaqankii gurigeeda looga dhaqmi jiray taas waxay keenaysaa gabdhaha Soomaaliyeed inay ku adkaato inay jimicsi suubiyaan sababtoo dhaqankii iyo gurigii ay ka yimaadeen jimicsiga wax muhiim ah looma arki jirin tan saddexaad waxay tahay dhalidda ilmaha badan oo isku xigxigo gabadha Soomaaliga ah waxay dhashaa ilmo badan maasha Allah gabadha markay uur yeelato dabcan miisaan ku darsamaayo sababtoo hormoniskeeda ama guud ahaan jirkeeda uu isbedelaa uurka markay yeelato oo cunugaas ay dhasho iyadoo miisaankii waqtigii uurka lahayd soo koray uusan ka dhicin haddana uur kale ay hore ka qaadaysaa kalabaad markay dhasho iyadoo labadii cunug ee la soo dhaafay miisaankii soo koray uusan wali ka dhicin haddana uur saddexaad ayay qaadaysaa uur saddexaad markay qaado oo ay dhasho haddana iyadoo saddexdii cunug ee la soo dhaafay miisaankii soo koray uusan ka dhicin mid afraad ayay qaadaysaa haddana iyadoo wali afartii cunug ee la soo dhaafay ee dhashay miisaankii soo koray uusan ka dhicinna mid shanaad ayay qaadaysaa taas waxay keenaysaa sanadba sanadka ka dambeeyo gabadha inuu ku darsamo miisaan badan tanna waa sababta gabdhaheena qayb badan oo kamid ah ay u cayilan yihiin tan afraad waxay tahay dhaqanka Soomaaliga meeshan waa meesha dad badan aan ku kala fikir duwanaan doono wax yar ka hor dhaqanka Soomaaliga cayilka wuxuu u yaqaanay qurux sababta wax kale ma ahan waxaan soo marnay xaalado badan oo adag nasiib dar qaar badan oo naga mid ahna wali way ku jiraan xaaladahaas badan oo adag iyo faqrigaas aan soo marnay ayaa wuxuu keenay dhaqanka Soomaaliga cayilka inuu u aqoonsado qurux firi qofka cayilan waxaa loo aqoon jiray qof taajir ah oo qurux badan sababtoo wuxuu haystay lacag uu ku gato raashin taas ayaa waxay keentay wali qaar badan oo naga mid ah inay aaminsan yihiin cayilka inuu yahay qurux marka xaqiiqada waxay tahay sababta gabdhaha Soomaaliyeed ku dhawaad 70% ay u cayilan yihiin ama obese u yihiin ayaa waxa ay tahay dhaqanka Soomaaliga cayilka uma arko wax khalad ay arkin ani kuma dhahayo qofka cayilan uu fool xun yahay ama dadka kale ayuu ka liitaa laakiin cayilka ama obesity-ga waxa ku lifaaqan caafimaad darro midada kale ani waxaan ku dooda sababta gabdho badan ay u cayilan yihiin isla markaasna cayilka aysan u arkeenin caafimaad darro ama wax khaldan waxa ay tahay waxa jiro faraxyo badan oo u arko gabadha cayilan inay tahay gabar qurux badan waa ogahay hadalkan dad badan inay liqaan wuu ku adkaana muddadii aan coachka ahaa waxa soo maray gabdho badan oo ninkii aroosi lahaa uu ku xujeeyay inay miisaan iska rido gabdhaha sababtii ani coach igu doorteen wax kale ma ahan sababtoo ninkii aroosi lahaa ayaa wuxuu ku xujeeyay inay iska rido 10 kiilo 15 kiilo 20 kiilo gabdhahaas shaqadii aan u diray si uga soo baxeen waad yaabaysaa iyo motivationkooda sidoo u sareeyay waxa kale soo maray wiilal badan wiilasha sababtii aniga coach igu doorteen wax kale ma ahan gabdhihii aroosi lahaa ayaa waxay ku xujeeyeen caloosha inay iska jaraan wiilashaas xitaa motivationkooda sidoo u sareeyay waad yaabaysaa shaqadii aan u diray 200% ayay uga soo baxeen marka xaqiiqada waxay tahay sababta videogan u suubinaayo waxay tahay waxaan kala jeclahay caafimaadka dumarka Soomaaliyeed sababta videogan u suubinaayo waxay tahay walwal ayaa isoo galay firi ilmaha Soomaaliyeed oo mustaqbalka dhalan doono hadii hooyooyinkood 70% ay cayilan yihiin ama obese yihiin meeqa cunug ayaa mustaqbalka dhalan doona oo qabo xanuunada cayilka keeno waxaan hubaa hadii arintan wax laga qaban
sanadba sanadka ka dambeeyo lambarkaas inuu kor u kici doono. mideeda kale adiga videogan fiirsanayo waxaa tahay hooyo, 100% waxaan hubaa haddii aan ku weydiiyo ilmahaaga ma u dhiman lahayd inay dhihi lahayd haa. bal haddaan ku dhaha ka waran ilmahaaga dartood ma u suubin kartaa jimicsi saad u caafimaad qabtid? haddaan ku dhaha ka waran ilmahaaga dartood ma u cuni lahayd raashin caafimaad leh saad u caafimaad qabtid? firi, ha noqon berri qofkii ilmaheeda faceed ka reebi lahayd. maanta waxaa rabtaa cuntid oo biis noqotid oo jiratid, berri ka maalin ilmahaaga shilinkii hayaan aday kugu daaweynayaan, facoodna waad ka reebaysaa. marka haddii aad naftaada kala jecleen, asxaam u suubi ilmahaaga oo facood berriha ka reebin. ilmahaaga dartood jimicsi u suubi, ilmahaaga dartood raashin caafimaad leh u cun. mideeda kale gabadhaada yar oo guriga joogto markay aragto adoo jimicsi suubinaayo, adoo caafimaadkaaga ka fikiraayo, adoo raashinkaa cunaysid iska fiirinaysid, iyadana saasoo kale ayay noqonaysaa. aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada videogan aad daawateen. waxaan noo balana videogan ku xigo. haddii ay jiraan waxa igaga fikir duwantihiina commentiga igu soo qora. aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaan noo balana videogan ku xigo. balanteenu waa caafimaad iyo muruq.